السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتها بوندا وضيال ميل كستو oo adduunida daafeeda aad ka joogtaan halka nagala socotaan wasaataa production barnaamijkeena maanta xiise gooniya ayuu xabaarsan yahay waa barnaamij wareysi cajiib ah oo aan la yeelan doono الفنان جيسي بوي maxaad ka taqaanaa raabarka muddooyinka dambe saxada fanka xagga raabka markii loo fiiriyo qabsaday maxaa kala socotaa taariikh nololeedkiisa kooban halkuu sahaatan ku nool yahay سؤال عجيبة أو بدن أو أدسويدين يسوع أيام برنامج كنا كويدين دونا الفنان جيسي بوي أنا جوا دعي سنة شاطا أي حاجة كاميرا صاحب بيال يقص عليه يولي بحاجة فرسمة ده هل كان نقول صعوتان وشاطا برودكشن كسر هذا برنامج كنا وريسيجا أو إن بدن أن كفا قد دونا أريم بدن أو كسابسن الفنان جيسي بوي سؤال شو رئيسي برنامج كنا أيام داود يالو قد قل دونا balse ugu horeen waxaan wareysigeena ku soo dhaweynaynaa alfanaan Jeazy boy soo dhawo Jeazy boy walaal waan dhawahay aad weyn aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale tina wareysigaan oo kale tadan mar labaad waxa umaleynaa waa markii labaad aniga adiga kulmeena si fiican marka aad ayaan ugu faraxsanahay sidoo kale shataana cameramanka oo yahay aad iyo aad ugu faraxsanahay maadaama maanta aan falaqeyn doono waxyaalo badan oo dadka su'aalo badan oo maskaxdooda ay ka guuxayaan actually ma dhahayo su'aalaha dhan ka wada jawaabayna because dadka dhan macnaha waa la kala su'aal duwan laakiin majority inta probability ah ku sameynay insha Allah soo qaadan doono of course su'aasha ugu horeysa ee daawadayaasha inta badan ay isweydiiyaan oo wareysi kasta lagu furta ayaan kugu bilaabi doonaa alfanaan Jeazy boy ugu horeen waa kuma Jeazy boy magacaada saxda ah bulshada u sheeg maxayse kuugu baxday neenaastan cajiibka ah ee Jeazy boy magacayga saxda waa xawaay waa Cabdiraxmaan Ali Xubey magacaan Jeazy boy waxa igu baxday waa aan joogay South Africa oo aan yaraa waagaas ay ii baxday ogta xaafad walbo waxa ka jira wax la dhahayo gain staff ma fahantaadi aan G staff wax saamala ka jira ma fahantaadi so waqtigaas yani ii baxday Jeazy boy saasoo kale too iga baxday some kind of like yani waa hadda waa dad Jeazy boy waqti sababta igu baxday waa si dheeraanaysa badan ay qaadanaysaa laakiin sidaas uu igu baxay Jeazy boy yalka xaafadina ahay qarahan Cape aan deganaay xaafad Leger Atlanta South Africa balse waagaadii hore South Africa ayaad ku nooleed si fiican dad badan oo waxa arkay ilaa iyo haatan ku haysta inaad ku nooshahay dalka South Africa si fiican balse haatan adiga afkaada maxaad ugu xaqiijinaysaa dalka ku nooshahay hadda aniga waxaan joogaa Uganda Kampala ayaan joogaa halkan ayaan wax ka bartaa oo aan ka diyaarinayo right now master degree aad su'aasha labaad ee barnaamijkeena ayaan u guda galaynaa saaxiibayaal Cabdiraxmaan Jeazy halkee ayaad ku soo barbaartay kana soo bilowday waayahaagii fanka run ahaantii waxa jirto yani markii aan yaraay waqti xaalad badan la kala maraa wadamo badan oo soo kala maray laakiin inta ugu xoog badneed ah xasuusta hadda oo yani aqliyan iyo maskaxiyan inta development aan ugu sameeyay yani waxay waxa ku soo barbaaray South Africa Cape Town yani waxa jirto moogtaa dadka saddex xal oo kala qaybiya markii loo fiirinayo dhinaca psychology-ga waxaa jirta wax la dhahayo stopping stage wedding stage stage kale taajir hadda aan xasuusin karin yani wedding stage waxa laga wadaa qofka markuu gangaaro 15 oo ka gudbo ilaa 20 waqti qangaarnimada uu ku jiro marka wedding stage-kiga xilligaasi waxaan ku soo qaatay South Africa Cape Town xilligaagii ugu badnaa oo fankaagii ilaa iyo soo barbaaritaankaagii waxa xilligii kugu badnaa waqti waxa ku soo qaadatay South Africa si fiican kadib intii u soo gurtay marka ama u soo xayaantay markii waagaagii halkaas dadku waxay kuga arkeen adigoo Muqdisho ka soo raab gareynaya marka waqtigee ama sanadkee sida saxda ama sida tooska ah aad u soo gashay raabka dad badan oo Soomaaliya ayaa isweydiinaysa si fiican horta raabkan si toos ah waxa uu soo galay 2007 واجس نحكي راب كريج نحاجر راب challenge وحلا ده stage كوريسا ميكروفون كانوا ديبايا وجالج كرينسا طبعا حلقة كاميرا وحاس يعني أسولو إن أفريقيا حتى إن كسر أفريقيا جت لك ومركا أبلن ستة لكن وجس وايراي وسكول لي بانها ما فهمت مركا حلقة وحاجر جرت إن راب stage كلا سماه وحكي راب جينا لغة أفريقيانس كلا تويو يقول مقالة in badan dadka ku dhow maadaama aan kamid ahay asxaabtaada qaarkood South Africa markii qaarkood ay ku soo wacaan waxa ka codsadaan in aad ugu raab garayso luqadda qalaad ee South Africaanka si fiican aad in badan
ciyaalka xaafada South Africa rap waa soo tuntay oo South African si fiican marka Soomaalidii maadaama ay kugu barteen Soomaali Jeazy boy oo luqad kale ku heesaya South African wali ma arkin weli ma arkin luqadda hadda aniga sheegeen waxa la Afrikaans yani waa Hollandees asal hadda ay hal ilo waa ka dhaw kaleeto ma jiif wari next smoke drunk me ko qolet op ed baxanta skoot yeah Alison is this that as a paint Scott. I get the die for Lua ba as a paint Scott. Alice says sex at the kind of stand at the fark is a ice called my Jeazy boy put the back of a nation. Look at us Afrikaans, right? So why you hear my career just challenge of some major so this is the laga sameeyay Soomaali in famous laga yaaba yani ana waxa xisaabsanana dad kale markaas Soomaali marka imaatay xaaladu aad u akirneed oo adiga raabka bilaabiisay si fiican maxaad ka xasuustaa waayahagii faneed ee bilawgii Muqdisho ee raabka markii aad bilaabaysay maxaa caqabadaha oo aad kala kulantay maxaa isleedahay waa aragtay wallahi marka xalka imaanay si fiican marka xagga imaaday dabcan waxbarashadii xagga caadii yani qaar inta kasto xagga ku soo dhigtay aan baajkeyga hadana meesha ka sii bilaabay waxa arki jirnay in muusiga meesha dhibaato ay ku tahay yani muusiga studio dhib ay ku tahay yani dadka dhan laxan ku yihiin dad kale ay dhahaan ay ku dhagiyihiin 1980 iyo 70 iyo kabankii wixii hadda kor waxa xasuustaa xitaa mar radio maanta mara Wareysi siinayo waxa isku kulana meesha in Allah Umar Jaaja oo hadda oo kamid ah fanaaniinta Soomaaliyeed ninkale toldaha sina Balto waa arkaas radio fi OD miya la jira sina ku kulana koronto iyo dad badan of course si fiican koronto so markaas dadku ilaa yab jireen oo waxay jireen qofa had kor link isoo mara freestyle rap meesha ku gelinay qofa isoo gal link oo dhaay yani fanka nabad guurinaysa kan waayo balooba ayana meedad macna la stage adiga markaas aad heesaysay oo rapka ku heesaysay qof dhageystayaasha kamid ahaa ayaa qadka telefoonka si toos u soo galay waliba oo abowaan ay waliba oo soo galiyay fanka soo nabad guurinaysa si fiican oo soo horjeestay fikirka of course so maxaa aan fanka nabad guuriya dadka ajnabi dhageysanaya dad East African marka 2021 waxa uu soo guureen dhalintii oo idin of course so waxa jir mugta wax la prediction wax la jir sax waxyaalo si qiyaasamaan so I knew it one day inay noqonayso dadka ay soo guuri doonaan raabka so that's the reason why soo bilaaway 2011 12 you know so inkastoo si fiican hadana tamka gameka uu soo galay 2013 ilaa 14 markaas xilliga ahayd 11 laakiin Muqdisho raab waa ka qaaday of course 11 12 13 I was going hard bro واسعودي مركز وده أدق وليبا because واجس مجرين معنا يوتيوب كي وجري لكن people لكن بدن دتك ما فانسنين وأنت بدن تيفي يا بالك سو عسى منكي أو تيفي اللي سو صاروا أو يونيفرسيتي تيفي اللي سو ده نكسل فنان أجري يونيفرسيتي تيفي هذا وريسي هذا مركز يونيفرسال تيفي actually ما فهمت سيفي عن أدي فنان كستا أو رابع أو الدنيا كجرا أو كجرا wuxuu ku heesaa raabka uu kala baxaa dabcan inkastoo adiga taqaan si fiican adigu marka raab ceenkee ah ayaad ku heesaa horta sida adigu u sheegay inkastoo Soomaalida qaarkood dhamaan aysan wada fahansaneen si fiican horta 1990 ilaa wixii ka horeeyay 90s Allah 90s rap music right waxa jiro hip hop jiro waxa jiro R&B rap yani soo waartad sida Chris iyo kale Eminem oo kale markay soo qaadayaan oo kale yani waa dareemka Eminem I mean Chris the game oo kale iyo yani waxa waa hip hop R&B mafant waxa jiro trap rap mafant dope jiro mafant aggressive jiro hard trap jiro mafant waa isku sii noqonaya marka aynka mixtape isku sii noqonaya aggressive ki hard iskor saarna arkaysa dope ki trap ki iskor saarna arkaysa aynko hip hop ki yani waxa jir amplix wax la dhahay xitaa Africa music marka waa isku naqshado kale si dhaadheeraysi galina dadka wada aad iyo aad ka wada laakiin adiga rapkaaga sax si fiican musigaaga intuu qosaya no musigiga wuxuu qoseeyaa old school rap hip hop inkastoo laga soo tagay lacani ma iloowan wali basic waxyar ka soo qaata aad iyo waxa ka soo qaata marka la xameenayo kala musiga labo waxa isticmaala dope trap ما فهمت إنك استوعبت ولد دوب تراب عسمين وأيه دم باللبض كنت من يكود طبعا اللبض كدم بيجي إكسلي ساق ياسايو وحصبح وحلدها يوكي جريل سعرتنا ده لأن يوكي جوكتو كلاتو
Britishka sida ninka la dhahayo ishak Big Shark oo kale to ninkan ka baxay Kongoliiska wuxuu ka baxay xeradan dalka Uganda ku saaran ee qaxootiga ka so dadka macnaha hadda dad badan dhalinyaro badan jirto Afrika jabra mid laayo kala jiro waxa jiro ishak way badan yihiin ma fahantay oo rabistiyaal oo UK from UK so dadkaas maxay ku raab gareeyaan drill UK drill wax la hayo Soomaalida I know 100% they don't even know macna way yaqaanaan like fanaaniintan rapka tiris I don't know but asin inshallah kami soon asoo rap Somali rap oo laxankooda kale laakiin ka macaan inshallah waa sameynayna asin haduu Ilaahay maadeen wata Jeazy boy intaan u guda galin noloshaada qayb kamida oo aan ku weydiinayno maanta barnaamijkeenan qayb kamida ka waxa jirtay muddooyinkan dambe waxaad ku socotaa si dardara tifian waxa jirtay hees adiga aad soo qaaday oo ama fighter la yiraahdo waxa ku jirta agsimaad qaarkood oo aad gelinaysa heesta inkastoo qayb kamida heesta ugu dambeysay waliba ahayd waa idin salaama saaxiib waa idin salaama hadaad qaban kartiin kaalay arkay qabta calaamadaha qaar oo aad gelinaysa jiro tifian calaamadahaas qaar dadka ma wada fahansano oo dadka qaar ayaa u maleeya waxyaabo oo si qaldan oo diinteena suuban ka baxsan tifian marka maxaad leedahay dhamaan bulshada ku daawanaysa you mean waxa ula jeedaa laakiin Illuminati amal sax Illuminati aad iyo aad sida baraha bulshada dadka qaar oo xumaanta ku faafiyay horta ma ogtahay Illuminati wuxuu yahay ma taqaanid macnihiisa ma taqaanid waxa gala ma taqaanid hope ina meelaha kama maqasho kaliya calaamadii wixii isku soo qaadanayso ma ogtahay calaamad walbo oo sameysmayso waa erey waa message waxa jirta 666 777 right now ani camera war fadhiya tamaan social media gala ma rabo inaan ku sii dheeraado laakiin I hope inaan si fiican kaaga aqoon badanahay laakiin waxa ku cadeynaa shaqo kuma leeyahay hadda shaqo kula halaani you think right now inaan wareysi la qaadaleed no ma dhici lahayn aad iyo aad si fiican waa tahay marka su'aashaas hadii aan ka soo laabana xagga oo sida aad adigu u cadeysay bulshada Soomaaliyeed in ayaga dadkaas gaf waliba magacyaal ay ku raadinayaan ma yaqaanaan basoma macnihi ma yaqaan dadkan dibka jiro waxa taa walaalo dadkan waxa hayso aqoon dari iyo xasinimo bro you looking for views like waxa laga yaabaa qof dhan inaan noloshiisa ku ciyaari karto waa dhibaato taasna Soomaan marka waxa ku dhilaa wixii research sameey dhaxgal at least wax ka fahan ma taqaan sida uu kala baxay Illuminatiga ilaahiyada ay leeyeen kala caabudaan you don't even know taasna ay maahan ina islaamana kristaanka waa barakartaa tan resid oo sameey kartaa baran kartaa adoo dhalinyarada Soomaan wax dhibaato kaaga imaanaya laakiin inay si fiicneenaba og tahay no of course ila meesha uu socdaan Soomaan soo wixii adoodan ogeyn waxa ka imaan kara aadan ogeyn qof ina ku tilmaamto waa qalad aad الفنان Jeazy boy waa kaaga mahad celinayna maanta jaaniskan quruxda badan aleele markii laga soo tago muusiga aad iyo aad oo aad siinayso bulshada Soomaaliyeed iyo waliba anaga ahaan Dhabta professional oo adiga aad iyo aad qayb xubin ka ugu weyn aad ka taabac ma xubin muhiim aad ka taabac si fiican Jeazy boy waa uu soo laabtay si fiican waxa uu la soo shirtagay ama uu ku soo laabtay muusiga cajiib iyo muuqaal qurux badan maxaa keenay ama ku soo aadiyay 2021 iyo 2020 in Jeazy boy intuu dhaxayso uu soo laabto muddo intaasina heesa badan uu san soo qaadin intuu uu fadhiyay ama uu aamusnaa markuu uu soo laabtana si degdeg ah 1 month gudood 4 hees isku soo daba saaray si fiican aad iyo aad maxaa sabab u arinka okay hadda ku sheega arinka dadka revenge iyo wax weyn ay raadiyaan Soomaa aad iyo aad hal eri waxaas dhan uu sameeyay aad iyo aad dad qof wax buu ka caroodaa Soomaa eri bisa u sameeyay taas oo dad ajnabi ugu dhaxeen yani wiligan ma maqlan Soomaali rap wax la dhahayo wiligan ma bajirabo so that's the reason why ana waxa uu ballan qaaday in Soomaali rap macna guriga waxay dhanaxtaa muusigaana Soomaali waa laga daaraa dadkeen way dhageystaan ay wax bay sheegan Soomaa muusigeena Soomaali waa laga dhageystaa dadkeen dhalinyarada waa dhageystaan ana bal waxa uu qaaday saaxiib dadkeen iska dhaafay ciyaalkiina xitaa generation soo baxay inay muusigeena rapka Soomaali dhageystaan aad iyo aad Jeazy boy adi ahaan dadka qaar kood kama noloshaada guud kama warqabaan si fiican heerkaada wax barasho waxa uu gaarsiisan yahay heer caalami ah si fiican dhankaaga shaqada guud adi ahaan shakhsi ku amreefad ku marka laga soo tago muusiga si fiican heerkaaga wax barasho iyo shaqada maxaad la wadaagleed bulshada wallahi alxamdulillah family wax igu soo beeray waqti isu galiyay dabcan hadda
master waxaa jira online aan ku dhiganaayay alxamdulilah wuu isoo gowgoway kaas iyo mid kaleeto waxaa jira hadda right now asigana aa wado buuggiis aad diyaarinayo almost waxaa dhigi karaysa double master laga yaaba xitaa ardayda qaar aniga isku galaaska nahanay kuwan ay ogeen in hal master ay kuwan waxay ogeen in hal master ay kuwan kaleeto in hal master ay ogeen they never know but alxamdulilah halkayga waxbarasho waa double master hobbigayga aan jeclahay inaan ka shaqaystane waa forex trading forex I know course waxay ku jirtay hees uu soo qaaday uu ahaydna heestii 2000 aad 2020 I make money from forex while I watching aniguna Netflix gacanteeda waxa ku xiran Rolex waa heestii aad ku soo laabatay aad si fiican waa tahay markii aan ka soo tagno arinka Jeazy boy kan adi fanaan ahaan ma jira fanaan Soomaaliyeed oo ay xurguf kala dhaxayso fanaan Soomaaliyeed aniga xurguf iga dhaxayso oo adiga xurguf kala dhaxayso horta niyo dagaal ama wax kasta aadan okay mid aan ku sheego hadda adduunka waa arday sax wadan walbo hub oo sameystaa Soomaa hub oo qaas oo sameystaa luguleerada iyo lagu dagaalaa aad wadamo shisheeye qaar iska difaaca laakiin isku marido okay هذا لكن هذا دع له example كور نقول هذا ود والجديس اسكو استعمال له اسكو ريد له محل له ودنك اسكو له والبابي لا سما so there's no one انا challenge Somalia كل جرمنا وحابه جعلها كله يا برادر قفل بالصومالي ما انت انو ما فهمت dadka qaar yani isdhaaya maano hebel that's bullshit bro yani ma fahansan wixii maano ana waxa ku sheegaya bro I know the music better than you respect oo haya inta dhalinyaro oo hadda inta raabka tiriso hadda dhalinyarada kulli walaalahay waay kulli waa walaalahayga aniga iga yar maanta waxay mudiyihiin in kuristaaga caawiyo caalamka tuso macnaha iga maahan caalamka some people waxa arkaysaa haters waa jiraan Soomaan dad cadow laakiin cadow mu arko qof inta meel soo istaago iska hadlo waxaas cadow ma arkaan okay dad waxa jira marka waxay sameynayaan ishag caalamka waxay u maleeyaan ma ahan Soomaalideena kaliya oo adduunka kaafistii kala joogto ma ahan hal qof ama loo qof amal ma aha it's like ma jira wili qof Soomaali oo Keenan ka ahayn whole nation people or different inta soo istaagan meesh oo ku luqeynaa luqadiisa Soomaali oo ka gaday ma jiro hadda laakiin waa aragtay luqadan Spanish ko kaleeto iyo dadka dadyan ay sameeyaan dad ajnabi arkay luqad xitaa ma garanayaan welina way dhageysanayaan is all about the fight adiga hamigaagu wuxuu yahay luqada Soomaaliga inaad dad badan oo wadamo badan oo adduunka kamid ah aniga hataa waxa ka xumahay horta inta salaamaya walaalkii sidoo kale tawaale aadan waa nin weyn oo magac leh respect oo haya eriyo waa eriyo murti leh ما شاء الله حشمت له وانا اريد لو غرتو dadka qofka Soomaaliga dhaladka waa ereyada murtida oo sameeyo okay last time waxa maqlay I think 2017 kama 16 tartan oo aaday tartan East Africa of course laakiin waxa ka xumaaday muusigiisa de loo fiiriyo muusiga kaleeto xogo uu ka hooseeya outfitki is different camera shooting is different saas mu qurux badaneen ma fahantay laakiin wili waa wadan anigaas but it's okay wili waa taagana Soomaan sinkaas laakiin waxa jeclaaleed raabar muuqaalo qurux ama heese kala dalaxan ka amal ani hadda waxa taagana inaan qof la dagaal iska dhaaf inaan koobkiga anoo calinkeyga wato insha Allah ta'ala South Africa ka qayb galo tartanka aad waxa jeclaa rajadaas inay ku rumo doonto saaxiib insha Allah Jeazy boy Cabdiraxmaan aad saaxiib adiga ahaan fanaan ahaan fanaan kasta waxa uu leeyahay rajo iyo hal abuur soo bilaabata si fiican fanaankee adiga ku dayata ama aad isdhigi jirta Allah leeyahay fanaankaas hadii aad bushiisinkiisa meeshu taagan yahay aad istaagto hadii aad istaagi leed heerkaad gaartay ama uu gaara asiga ina ahayd aad gaarto aad jeclaan si fiican horta walaal waxa jirto horta qof waa lagu daydaa ana hal shay jeclaa inaan ku daydo oo raaco sida dadkii waaweyn oo kale waalidiintii oo kale footstepkooda inuu raaco waa laga yaabaa la kalmida aaminsanahay qof walba qof oo watay qofkaas waa la qaatay Soomaan ina aniga ina sameeyo new rocket oo qof aan ku dayanin wax ina la imaado ina new rocket sameeyo wax cusub aan la imaado dadka waa jiraan dad inay ku dadayaan hebel amal amaan noqoto laakiin hebel waa la qaatay hebel waa Soomaan magaciisa oo isticmaal Soomaan hada dad qof dhaa ka Cristiano Ronaldo amal iska dhigaa no Cristiano Ronaldo is gone Messi iska dhigaa dooda is gone mo so adiga power leedahay brother ilaahay kuwa abuuray isticmaal powerkaas soo ma jiro qof aan ku daynayo marka qof adiga ku dayatid ma jiro walaal si fiican aad Jeazy boy adi ahaan ma jirtaa haatan heeso badan oo ku qorsaysan oo daawadayaasha aad u sheegayleed dhawaana aad soo wado aad jeceshahay
Somali music inaad ku hormariso of course hadda naftirkeeda managerkeeda ugu dhagan maane wallahi I would like to every week in hal soo sameey laba xabada awood taas wali heesa side wali miskaga dad sida fasaxno dhow laakiin aniga adoon kay musalsalina ka dhiga jeclaalahay ba qaybta kood habeen kasta qaybta labaad qasa isbuuc musabba qaybta labaad inay daawadaan si fiican daawadaasna waa ay ka wada bagteen ayaan filaa in Jeazy boy talent aan uu leeyahay habeen kasta inuu heeso saaro laakiin wax kasta ay leeyihiin maamul of course si fiican fanaanka uu leeyahay maamul imaadeen sida iskuulaadka iyo waliba goobaha xarumaha waxbarashada iyo goobaha management wax walba leh waqtiga leh lacagta leh macna maamulada leh Soomaa marka wax walba management loo baa management wax soconaa su'aalaheeni ugu badnaa maanta kugu talagalnay maadaama aan ku weydiino hal su'aal oo kaliya ay noo harsan tahay hal freestyle oo Soomaaliya ay ka codsanayaan dhammaan daawadayaasha maadaama niyadooda anigoo kaliya aan ka turjumayo cameraman si fiican okay English ma Somali okay توبي قبصو توبي كرباش مادام كرباش كو ودا سocdo dadkina كرباشka ay jecel yihiin كرباش lay qabsanayna kale okay saaxiib ila hadal ani ma galo wada hadal dadka waxay u moodaan ina bixiyo raali gelin laakiin waxa bixiya on li maal gelin Jeazy baby waa kamar kale waxaan wadnaa Wareysi aan iduceysane intii ka xunne waa baduuge wala laakiin daar meel ugu soo gaadhay walaal ugu dambeyntii daawadayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii barnaamijkeenan Wareysiga oo aan la yeelanaynay الفنان Jeazy boy aad الفنان Jeazy boy ugu dambeyntii dhammaan ya salaam isa dhammaan waxa salaamaya inta af Soomaali ku hadasho Soomaali everywhere ay joogaan salaamaya waxaan jeclaa doonaa waxyaalo badan oo ku farxi doontiin qof walba Soomaali hadda cadawgiga u yahay xitaa tomorrow hadda calankii anigu macnaha meelo jirin shalay aan iska suro oo farxa Soomaa soo salaama everyone Soomaali waxaan ku jeclaa wadaniinimada وسلام سلامة صاحب وعليكم سلامة ما طيب كويس سيتريس كمان هم ده لايك كلنا بعدين إن شاء الله جالس هذيك مالك استأجر كم كرت ماشي كيسو دتك يبغى ما أنت هذه ماشي كرو كيسو قوي كرانه لما نقول هذا وضيال أنت أيام جعلنا هاي إن كيسو قبل نبرامج كني ورئيس جاها وعلي لنا نيرهابر كعنك الفنان Jeazy boy وهاتن كيسو كان مقالة عاصمة دوّة دل كان يوغندا كمبالا barnaamijka xagga farsamada iyo saaxiibayaal kaamirada waxa iga caawinayay cameraman Cabdiraxmaan Shaata halka nagala socoteena waa Shaata production anigu waxaan ahaa duceysana sidaas iyo isma dhaafno